صدورنا إيش واحد كان حيا مركز إيش سوق وهان إيو صابع وحيكون كذا دوين إيش argagixiso dhamaanteed waxay ka bilaabataa oo ku dhamataa isaaq bay ku dhamataa waxaan leeyahay nimankaas diinta sheeganaya juhalawi waxay diinta ka yaqaaniin ma jiro wuxuu ilaahay inoo sheegay inay diintan inna diin al-islaam tudahiru cala al-adyan kullaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك سعدون كجوكتان لما وحق سلامتين صلاة إسلامك. بالوحان دوني أمانة إن كهد له نمين يلي وطبعا أبدا بيش الدارود يبيش هوية وشاقر غير شيخ صحاق غير كالي هذا إيه يهين غير طبعا إسكالي نمكن كوحاهن كدقالما صوماليا sidoo kale ayagu abuureen oo ayagu sameeyeen una samaysteen dabcan inay koonfur ku uryaamiyaan si waqooyi dawlad taageer ay u noqoto bal waxaan halkaa idiin soo dhigayaa niman daarooda iyo niman hawiyaa aniga oo aan dabcan weerarayn oo aan waxba sii fogeynayn nimankaana aan falaqaynayn ayaa waxaan doonayaa kaliya inaan ka jawaabo su'aasha ah reer sheekh saxaaq ayaa abuuray kooxdaas oo aan cadaynta keeno in aanay reer sheekh saxaaq kooxda shaqo ku lahayn waxa weeye iyaguna abuurin cadaynteeda inaan halkaa keeno intaasoo kaliya ma aha inaan daarood garaafaynayo oo weerarka ay soo qaadeen aan uga celinayo si Soomaalidu oran jirtay haddii far lagu soo fiiqo laba la fiiqaa sidoo kale caliyar cali iyo hawiye inaan u jawaabiyo ma aha kaliya arrinkaas uma yara cadaynaya oo bulshada Soomaaliyeed u cadaynaya waayo waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka la garayso share garayso channelkana subscribe saarato waayahay saaxiibayaal waxaan idin tusayaa idinku badin maayo saddex shakhsi oo saddexda shakhsiba reer sheekh saxaaq yihiin oo saddexduba hargeysa joogi jireen ayaan doonayaa inaan idin tuso sidii Soomaaliland loogula dagaalami jiray waxa weeyaan aadan sunne waa nageeye waa gamadiid waa abwaan gamadiid ninka la yiraahdo bal intaba abwaan nageeye ninka la yiraahdo nin u adeera oo abwaan dheeg la yiraahdo oo dabcan Soomaali dhexdeeda caanka ah ayay madal ku kulmeen wixii qabsaday dhaguhu qabsaday wuxuu ku yidhi halkaas idin soo dhigayaa waana isku adeer waliba isaaqnimada ka kaalay waa isku garxajis ninka la yiraahdo gamadiid isagoo xiran oo caafimaadkiisa iyo la leeyahay jeelkiiba ku qurmaya ayaan halkaa idin soo dhigayaa aadan sunne isagoo la leeyahay hadda la dilay wata la baxay xataa qoyskiisiba la jir dilayna halkaasaan idin soo dhigayaa booliskii Soomaaliland oo ka hadlayana halkaasaan idin soo dhigayaa inta marka aan idin tuso waxaan idin tusayaa oo idin sheegayaa sababta ay kooxdaasi Soomaaliland caga ugu yeelo weyday iyo cidda dabcan ka eriday arrinkaas oo taariikh u noqonaya waayo ba horta waxaad ila daawataan inta idin soo sheegay saddexdaaba ila daawada maanta raggaas uu la xukun yahay xabsiyeedkiisa ay dhamaatay abwaankeenii Cabdiwaaxid Cali Gamadiid isagana si la mid ah sida raggaas loo haysto ay xukuumaddu diiday inay xorriyadooda u soo celiso waa ayaan darro weyn waa dulmi dalka ka socda waa tacaddi habeenkii xalay ay ahayd markii ciidamada RRU ay ugu daateen gurigiisa Sheekh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunne oo kamid ah culimada diinka dalka TV-ga kalsan ayaa uu koorgalay si wax uga ogaado wixii xalay dhacay ee sheekha lagu soo qabtay halkani waa guriga sheekha waxaan kula kulanay xaaska sheekha waxaan ka cudur daaratay isla markaasina ay ka goos qabsatay inay ka hadasho wixii xalay dhacay iyadoo farta ku fiiqday in xariga soo noqnoqonaya Sheekh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunne uu mas'uul ka yahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Sareey Guuta Cabdilaahi Fadil Iimaan waxa sidoo kale ay noo sheegtay in markii ciidamadu ay
qabanayeen sheekha ay jirdil u geysteen qaar ka mid a qoyskeeda. iga badnaaba idinka wax badan bay kuma faleen kuwa ku xiga waxa weeyaan intaan isku afka nahay af Soomaaligu namideeyay inaan u gabiyo ma waxaad doonaysaa ku inayna ka sii daadego dabeetana ka soo Hargeysa imaado deetana xaafadayda niyo Hargeysa sii tago deetama yeelay hadaalayay ragii xiliya maal wuxuu lahaa maalin laga xoogay inay xusuustaan ku waday xumihii loo geystay maantana haddii loo xodxoday meeshii lagu xaaqay oo lagu xakaafsaday mar kale oo la kaba xanaaqaynin oo la xaad qaaqdiya lahayn ficil xalaareeya xoolaha kama duwana aad ugu xaaladaasi in aad daawateen ayaa rajaynaya nagayo wuxuu ku dhacay inaad daawateen gamadida xidhan oo jeelka looga hor ooyayo aadan sunno qoyskiisii waxa weeye la leeyahay waa la jir dilay hortas arrinkaasi way kala duwan tahay laba waa gamadid iyo aadan sunne xadhigeedu iyo xidhkiisa iyo oohinta laga hor ooyaa waxay kuu caddaynaysaa tayada sirdoonka Somaliland iyo dagaalka ka dhaxeeya Somaliland iyo kooxda iyo sida ay shakhsiga ay arrinka ku arkaan ay jeelka u dhigaan waa kuwa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ka hadlaya wuxuu ku jiray hawlgal aan kala go' lahayn muddadanba oo ku xaqiijinayo amniga qarankan iyo dalkan hawlgalkii ugu dambeeyay ciidanka bileysku ay ka hawlgaleen xalay waxay ku soo qabteen Sheekh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunne oo khatar ku hayay qaranimada iyo khalkhalgelin nabadgelyo lagu soo xiray in aad daawateen ma rajaynaya qofka dabcan caadiga ah ama qofka xataa wax yar oo yaqyaqsiya leh wuu garaabaa marka runta loo sheego waxaad maqashaa dhaqayno caan ku nahay oo la yiraahdo qofkaasi xaal buu bixiyay wuu khaldamay laakiin marka qof ilan gumeed ah uu khaldamo waan xal ka raadin baa la yiraahdaa waa ilan gumeed kulli dadka inta goobta ah ee aaminsan reer Sheekh Isxaaq Warniyo waa waxa intaasaa ku filan weliba caddeyn kala idinku daraya haddaba sababta ay wiilka reer Sheekh Isxaaq uu jilib u tago oo meelahan Hargeysa waxa weeye uga deemaartay shaqaysan waayay ama waxaan ay fuliyaan u fulin waayay nimankani markii dawladdii faqashta ahayd ninkii Siyaad Barre la oran jiray haysan jiray markii uu dalkii midka ha burburay ee uu gurac ugu danaystay ninkaasi ayay horta dadkani meesha soo galeen hore looma maqli jirin ummadda kale ama wadannada kale oo kale ayaynu ahayn maalinkii burburkaasi dhacay ayay nimankani waddanka soo galeen oo qabsadeen waayo haddaba waxaan idin tusayaa markii waqooyiga ay sidaahdeen nimankaasi ka hana qaada ama fikirka ay wataan sidaahdeen ka hana qaada ama waxa weeye muujista waxa haystay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ilaahay ha u naxariistee waxa uu ku yiri waar weynu doodaynay kitaabkiina soo qaata waana taa cadayntii waxaan leeyahay nimankaas diinta sheeganaya juhalawi waxay diinta ka yaqaaniin ma jiro wuxuu ilaahay inoo sheegay inay diintan inna diina alislaami tudahiru cala aladyaani kullaha qur'aanka ah laa uqsimu bimawaaqici الnujuum وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربنا العظيم سبحان ربنا العظيم سبحان ربنا العظيم محيطها يا أيضا dadkani dad muslina wey ilaahay bay yaqaaniin nebigiisii bay yaqaaniin meeshay u socdaan iyo waxay u socdaan iyo waxay doonayaan bay garanayaan na dhakri maysaan caalamka islaamka ayaanu ka midnahay aad daawateen baan rajaynayaa markii horta waxaan dee laysku haystaa waa dastuurka sharciga waa waxyaabahaas laakiin anigu horena waa muuqaalkayga xogga horena waan ku afeeftay waa idiin soo sheegay hordhacna uga dhigay kama hadlaayo nimanka hadafkooda qaabkay u samaysan yihiin waxay doonayaan waxaa kama hadlaayo keliya waxaan ka jawaabayaa su-aasha ah somaliland maxay nimankaasi maaragtay uga shaqaysan waayeen wax yar waxaan ku darayaa maxay isaaqu halkaa hormuud uga noqdaan waxay intaa yar waan ku darayaa اللهم صل على محمد إن عقال أمام حاج راحة عقال وحوها شخصي دينة إسلام كأقوم في عنه له أي ندودنا وحدي إجابة ديسان أبتيالو إذن كاودن كمامولا يا وحين أنا وكوش قينا هدي أنا إذن كبدينا يدلك أنيجا مامولا يا وحى أن وضع هدي حرام تهينا وان عدينا يا هدي حلال تهينا وان عدينا يا idinkuna waxaad wadaan inay xaaraan tahay iyo xalaal tahay iyo caddeeya buu yidhi kitaabkiina la soo qaata kitaabkaygana waan soo qaadanayaa halkaa bahashu markay marayso madaxii somaliland soo figfig lahaa ama nimankaasi ay wadeen meesha uu ka baxay wax kale oo ay kaga maqan yihiin ma jirto madaxweyne kale oo ka shaqeeyey inaynay nimankaasi awood somaliland ku yeelan ma jirto waxani markay dhanka somaliland noqoto dhaxalkii ina cigaal bay dugsadaan markay kooxaha noqoto qofka libintiisa lama qariyo waa taqaanaan aniga somaliland kolley cid dee waxa weeye maanta ay baranaysaa ma jirto shirkii 93 حتى وما أقانان وشير سومالان لو قبتي شير أفتوبان وأقانا شيركي بورما لكن إن أمحاد راحة قال وحو قبتي وحقبت كيسا هيد لقارين مايو بكوس أنا قد أقنك يهود ملهين وحي وكو خلدانا وان شاقنا وحي وكو صحنانا وان شاقنا هلكي سومالان كقلو عطي وان شاقنا هلكي وكو صحنتينا وان شاقنا مركا de waxaan ku hadlaynaa anaga waa qalbigayga ka timaada kama timaado meel kale oo munaafiqad ma aha ujeedo cid ku xumeena ma aha cid ku yas ma aha ina cigaal sarreysii ma aha hooseysi ma aha diid ma aha habar awal ma aha habar awal xumee ma aha garxaj wanaaji ma aha habar jeclo wanaaji ma aha arab xumee ma aha waxa iyagu taa ma aha sax ah khalad taasaa saxa taasaa qalad ah maxamed ibraahim xaaji cigaal markii uu arrinkaas sameeyey waxa uu isku xeeray culimada la yiraahdo ahlu sunna wal jamaa wasiirka diinta awqaafta wuxuu ka doontay meel gondoli baax la yiraahdo inkastoo ay suurta gelin wasiirkii dambe hadna wuxuu ka doontay awdweyne waa wasiirkii labaadna saasuu ku noqday wasiirkii saddexaadna waxa uu ahaa reer gibile isaguna ahlu sunna ahaa marka waa taariikh وإنا عقال إسكالي يهي ودحل دادكني أي كو سمادين كو برواقوبين كو قوليستين أو إنا عقال uga marka somaliland madaxweyne diin leh ayaa cagaha u dhigay marka taasaa sababtay inayna somaliland awood ku yeelan ma garateen haddii dabcan ay dee saldhigyo ka samaysan lahaayeen maaragtay meelaha gacan libaax iyo burcaha iyo dhulka dee walaal way iman lahaayeen laakiin dee ciidan dowladda somaliland baa ayaa la sameeyey cid kalena lama ogola xataa afar qof meel qori lama wada istaagi karaan oo waraysiga waad aragtaan nimanka taliyayaasha qaranka jamhuuriyadda somaliland
sidaa uu ogaada somaliland sida ay waxa weeye ay nimankaasi kaga maqan yihiin waa sidaa fikirka nimankaasi ay haystaan dadka hogaamiya waa isaaq dad mana aha wax isaaq leeyahay laakiin shakhsiyaad reer sheekh saxaaq ah ayaa waxa weeye dee nimanka waxa weeye tala ku lahaa soomaali baanay horkacayeen kolley soomaali horkacana isaaq marka la yidhaho waa lagu yaqaanaayo dee xorriyaddan soomaali talyaaniba waxa weeye isaaq ba horkacayay iska daa soomaalida waqooyi soomaali talyaani xorriyaddan jabuuti reer sheekh saxaaq baa magaca weyn ku leh dee isaaqna weligeed bu soomaalina weligii bu reer sheekh saxaaq horkici jiray marka inta dee gobta ah hadalkayga si fiican bay u garanayaan inta dee dabcan gunta ah ee beenta sheegaysa ee dabcan dowladnimada somaliland ka xun ee isla waxaan ku shaabadeena kolley dee waxa weeye aayado qur'aan ah ayaa ku soo arooray dadka noocaasa nebi maxamed baa lahaa waa sixiroole nebi maxamed baa xaaskiisa wax laga sheegayay waxa weeye qofka rumeeye nebi maxamed baa wax laga sheegay abukursidiiq baa wax laga sheegayay carabta qoomiyadda uu ku dhashay quraysh la yidhaha baa wax laga sheegayay waxaana wax ka sheegaysa yuhuud war qofkii dee isagu waxa weeye dee dhaqankaa wada dee dhaqankaas waa dhaqan qur'aankeena laynoogu sheegay waana dhaqan uu ilaahay dee waxa weeye uu qur'aankiisa nebi maxamed inoo soo dhex mariyey oo annagu haddii ay laan munaafiq kugu taallo kaa tiri mayno laan munaafiq hadday kugu taallo kaa tiri mayno kaana goyn kari mayno laakiin wixii run ah ayaan anigu sheegnaa arrinkaasina waa sidaa hal arrin baan yar raacinayaayo ninkaasaa la lahaa waa isaaq oo waa habar jeclo balse ninkaa waan dabagalay waa dhulbahante waa ree hagar aad iyo aad baa umahadsantiin arrinkaa yarna waa intaa